kala wanaagsan waxaan sii wadana cashirkeeni shalay aan sii wadnay page 2 page 3 I mean page 3 marka English iyo Soomaali baan ku baahnay doonaa hadii la wada dhado waxaan isku day doonaa soo kale inaan sharaxno sarbeebaha ama taqaana ama orayada sarbeebta ah ee ku jira sheekadani. The stranger had to clear his throat. The stranger had to clear his throat to get my attention. The stranger had to clear his throat to get my attention. Niki qariibka ahaa ama niki qariibka ahaa hard to clear his throat waa inuu yiraahdo macnaha marka lagu leeyahay to clear your throat waxa macnaheedu marka macnaheedu talaan doorso in qof soo jeedo soo kale marka waxa weeyaan ma aha macnaheedu labta la nadiifiyo maaha. The stranger had to clear his throat waxa qasab macnaha waxay ahayd ama waxa qasab ku noqotay niki qariibka ahaa inuu yiraahdo to get my attention si uu soo jeediyo. He was still waiting for an answer. He was still waiting for an answer. Weli wuxuu sugayay jawaab. He was still waiting for an answer. Weli wuxuu sugayay jawaab. Ku saabsan maxay? About the car's make and model. He was still waiting for an answer. Weli wuxuu sugayay jawaab. About the car's make and model. Ku saabsan gaariga cidii samaysay ama meeshii lagu sameeyay wixii laga sameeyay baan u jeedaa. Cidii gaariga samaysay iyo modelkiisa ama nooca uu yahay gaarigu. He was still waiting for an answer. He was still waiting for an answer. Weli wuxuu sugayay jawaab. About the car's make and model. Ku saabsan gaariga noociisa iyo halkii lagu sameeyay. I don't know. I told him honestly. I don't know. I told him honestly. Ma garanayo. Yaa si daacad ugu yiri. I don't know. I told him honestly. Ma garanayo. Yaa si daacad ugu yiri. Did you mind? Did you mind if I take a picture with it? Did you mind? Did you mind if I take a picture with it? Did you mind if I take a picture with it? Ma dib baad u aragtaa? If I take a picture with it, haddaan sawir ku galo. Take a picture with something that waxa weey macnaheedu sawir ku gelid. Gaarigaas ku sawir ka wada macnaha. Sawir la gelid macnaha waxa weey macnaheedu sawir ku gelid. Wuxuu yiri markaa, did you mind? Ma dib baad u aragtaa? If I take a picture with it. If I take a picture with it. Haddaan sawir ku galo. Ma dib baad u aragtaa? Haddaan sawir ku galo. Wuxuu yiri markaa, it took me a second. It took me a second to process that. It took me a second to process that. It took me a second to process that. waxa weey macnaheedu waqti bay ku qaadatay inaan fahmaa inaan taa fahmaa waqti bay ku qaadatay. It took me a second waqti bay ku qaadatay to process that inaan taa fahmaa ma had lama macnaheedu lama oranayo ilbiriqsi bay ku qaadatay. It took me a second ilbiriqsi bay ku qaadatay boo oranaysid to process that macnaha waxa weeyaan waxa isku jirtaa sentence-kaasi ama jumladaasi waxa isku jirtaa laba phrase ama laba oraha gaaban waxa weeyaan it took me a second to take waxa took me a second waa maaha af muceed waa suuqdi oo waxa looga jeedaa macnaha muddo bay ku qaadatay waqti bay ku qaadatay to process that macnaheedu waxa weeyaan ka fikrad ama fahmid marka muxuu yiri it took me a second waqti bay ku qaadatay to process that inaan taa ka fikira ama inaan taa fahmaa. Really waxa dhaba madaba ama ka dhaba really dhabti. You want to take a picture with the car? You want to take a picture with the car? You want to take a picture with the car? Really ka dhaba really ka dhaba. You want to take a picture with the car? You want to take a picture with the car? waxaad rabtaa inaad gaariga sawir la gasho sawir ku gasho. You want to take a picture with the car? Really madaba ka dhaba. You want to take a picture with the car? waxaad rabtaa inaad gaariga sawir ku gasho. Sure ha xaqiiq ama hubaal xaqiiqi hubaal ee macnaheedu waxa ka dhiganto yes oo kale la macnaheedu mana context soo jirto marka wuxuu yiri sure ha nobody's gonna believe me. cidna ima aaminayso. Nobody's gonna believe me. Nobody's gonna believe me. cidna ima aaminayso. Sure buu ha nobody's gonna believe me. cidna ima aaminayso. If I don't get proof. If I don't get proof. If I don't get proof. haddaan caddayn haynin cidna ima aaminayso. Sure buu ha ma xaqiiq. Nobody's gonna believe me. ليش ودي واحد really ما كان دبا. You want to take a picture with the car? You want to take a picture with the car? واحد فتانة قال لي صور لك الشو. Sure bro. Ha
nobody's gonna believe me cidna ma aaminayso if I don't get proof haddii aanan caddayn hayn wuxuu yidhi I swiftly put away the nozzle I swiftly put away the nozzle I swiftly put away the nozzle si degdegan qasabadii shidaalka yaa waxaa ujeedaa tuumbadii shidaalka furka ugu daboolay si degdegan u daboolay tuumbadii shidaalka put away haddaad maqasho put away waa phrase self macnaheedu waxa weeyaan waa shayga markaad halkiisa hore ku celiso shay baad gacanta ku haysato tusaale ahaan bartii aad ka qaaday aad ku celiso eega masalan wuxuu ka furay markii hore furka nozzle haddaad maqasho waxaa la yidhahdaa ما تقانا ما تقانا تومبدا يرش قصبتنا بتومبدا جاري الشدالك تصالون وسمريا أما النقص كبحه باش يا لورنيا إن ما تقانا نوزل معناه كلا لو يلاد معليك وحويان إن سنك حيوانك ومصل بلا معناته مصل يحصل معناه نوزل مصل ينوزل لو دبا سنك حيوانك على لوركنا لكن بيكون حيوج تهالكني ودبول كير ما تقانا لو دبول قصبتنا النقص كصباحي فرقة معنا لساري أما قصبتها shidaalka marka wuxuu yidhi I swiftly waxaa macnaheedu si degdega I swiftly si degdegan put away the nozzle iyo furka halkiisa ugu celiyey si degdegan furka ugu celiyey qasabadii shidaalka I swiftly put away the nozzle si degdegan furka ugu xidhay ama aan ugu celiyey furka shidaalka macnaha ka dhigan tahay furki shidaalka gacanta iyo marka hore ku haysatay and crept into the front seat to hide and crept into the front seat to hide markaasaan u gurguurtay iyo tiri markaasaan u gurguurtay kursiga hore saan isku qariyo saan u dhuunto ay swiftly markuu yidhi macnaha sawir baan ku galay waaga dhab yaana si degdega furka ugu xidhay qasabadii shidaalka and crept markaasaan dabeedna u gurguurtay into the front seat to hide yaan dabeedna markaasaan u gurguurtay furkii ma taqaanaa kursiga hore saan isku qariyo oo crept waxay ka timid kelmadda creep macnaheedu waa gurgurasho creep crawl bay la macnataa soo kale CRAWL crawl waxa la gurgurashada creepna waxa la gurgurashada hadda markay past noqoto laakiin maxay noqoni crept marka wuxuu yidhi I swiftly put away the nozzle furkii baan si degdeg ugu xidhay qasbadii shidaalka ugu xidhay tusaalahaan and crept into the front seat markaasaan u gurgurtay kursigii hore to hide saan dhunto while the enthusiast the enthusiast kii halka kii xamaasadaysnaana waa ka sawirka macnaha doonina ku galo while the enthusiast halka kii xamaasadaysnaana dug a huge professional looking camera out of his backpack while the enthusiast dug a huge professional looking camera out of his backpack halka kii xamaasadaysnaana oo ka soo saaray kamarad lagu shaqeynay macnaha xirfadlaha ahayd baa taqaanaa xirfadlaha weeg professional looking camera kamarad u eeg xirfadlaha macnaha xirfadlaha waxaan uga jeednaa tan waa isticmaalada dadka hadda shaqadoodu tahay sawir qaadida macnaha photographerska photographer dadka hadda jirto isticmaalo macnaha marka wuxuu yidhi while the enthusiast halka kii xamaasadaysnaana dug a huge professional camera aw kamarad xirfadlayaasha la moodo uga soo saaray out of his backpack borsadiisa yar dhabarka backpack waxa la yiraahdaa borsada yar sidaha leh ee dhabarka alaabta lagu qaato markaad safar ama meelaha aad baxayso waxa waliba labada garab sidayaasha kule la socdo yalla backpack marka wuxuu yiri while the enthusiast halka kii xamaasadaysnaana dug a huge professional looking camera aw si xamaasad leh waxaan halka kii xamaasadaysnaana aw kamarad la moodo xirfadlayaasha uga soo saaray ama uga soo jiiday out of his backpack borsadiisa dhabarka he and his friend took terrorists marka macnaheedu waxay noqonaysaa isagii saaxiibkii baa isku beddelay kolba midba macnaha sawirka ku galay he and his friend took terrorists isagii saaxiibkii baa isku beddelay bal haddaan noo daba u dhimaano sheekadii aan soo wadnay ma taqaanaa page 1 iyo page 2 oraha la odhanayo maxay waxaa ku jira sarbeebo far badan oo soo baranay idioms baa Englishka la yidhaha sarbeebta and metaphors iyo mutashabih hadalladii ma taqaanaa waxa weeye macnaha haddaad maqasho metaphor waa afmaldahid shay baa shay lagu masalaya shay baa shay marka la metaphor waa afmaldahid macnaha nooca in shay lagu matalo labada shay isku mid maaha laakiin astaamay wadaagaan ama waxaan uga jeednaa waa two different things but have one thing in common laba shay oo macnaha kala duwan laakiin waxbay wadaagaan tusaale ahaan haddii la yidhaahdo markii tusaale waxa ka soo qaad waxaad tiraahdaa my father was a lion in the battle my father
was a lion in the battle aabahay dagaalkii libaax buu ahaa qof bilaadan iyo aabana waa bilaadan libaaxna waa libaax oo xayawaan qof bilaadan iyo libaaxna isku mid maaha laakiin maxaa macnaha looga jeedaa libaax baa marka leeyahay macnaha sifooyinkii libaaxa lagu yaqaan caloolodayga tusaalahan ama geesinimadii buu muujiyay ka dhigan tahay my father was a lion aabahay libaax buu ahaa in the battle dagaalkii xilliga dagaalka aabahay ama dagaalka dhexdiisii aabahay libaax buu ahaa macnaha waxa laga wadaa si geesin buu dagaalamay taasaa la leeyahay maxay metaphor tusaalahan haddaad tirahdo kaba soo qaadba marka eeg waxaad ka warramaysaa qadadii shalay markaad qadayseen ama duurkii maanta markaad qadayseen markaasaad waxaad tiri kaba soo qaadba she was a pig at lunch she was a pig at lunch oo macnaheedu maxay noqonaysaa doofaar bay ahayd qadadii gabadha heblaayo maxaad orani she was a pig at lunch xilliga qadada ama qadadii doofaar bay ahayd gabadhaasi gabadhuna waa gabadh waa bini aadan doofaarkuna waa doofaar xayawaan de gabadh doofaar noqon mayso laakiin maxaa looga jeedaa waxaad ka wadaa she was greedy way cirweyneed way iibaan lahayd macnaha waa sida doofaarkii waxay cunaysay ka dhigan tahay metaphor baa marka waxaan baranaa balada cashirkan inuu soo baranaynay labada page ahaa idioms and metaphors in the script qoraalkaasi macnaha ka soo sheekaynay sarbeebaha iyo mataqaanaa afmadlayda metaphorka la dhahdo ee ku jiray aanu ku mataqaanaa aan ka bilowno idioms kama sarbeebaha pick up the pace maxay noqonaysaa macnaheedu degdegid ama dhaqsasho pick up the pace degdegid ama dhaqsasho doing it just to annoy me anu bay dhibayaan eeg anu ma dhibaya doing it just to annoy me aniguna dhibaya ama anu niga xanaajinaya sensing waxaa ku xigtaa number 3 sensing the eyes on my back haddaad tirahdo someone is sensing the eyes on my back macnaheedu waxa weeyaan qof ay soo fiirinaya eeg waa macnaha qof adigu fiirinaya ba ku eegayay macnaha markaan leenahay eegid ama fiirintaasaa la odhanaya maxay sensing the eyes on my back waa dad macnaha qof adiga ku soo fiirinaya look at me macnaheedu waa maxay soo fiiriyo waxaa looga wadaa ma taqaanaa and then waxaad tirahdaa number 4 under my press haddaad maqasho waxa weeye macnaheedu waa guuxid ama goroncid waa hoos wax u dhehid waa ama sama cabsi ama qof kanood keer xishoonayso ad maxaa loo dhakaa saa waxaad odhan tusaalahaan I mattered under my press siru macnaha waxaan u guuxay waan goronc ama hoos baan u hadlay weyn macnaheedu hoos baan u hadlay and then waxaa ku xigtaa there was no getting around the truth there was no getting around the truth there was no getting around the truth oo macnaheedu tahay runta la iskama indhatiri karin there was no getting around the truth around that truth runta la iskama indhatiri karin ama runta lama dafiri karin waa sabab there was no getting around that truth runtaasi la iskama indhatiri karin ama lama dafiri karin let alone here yaa ku xigta let alone here iska badda halkane macnaha haddii labada kelmadood marka la israaciyo let iyo alone let alone markaad tirahdo let alone waxaa noqonaysa macnaheedu iska baddaayo waxaa ma samayn karo iska baddaa waxaasoo markaad leedahay misal maxaad noo socodba the child cannot stand up let alone to run ilmuhu ma istaagi karo iska baddaa inuu cararo the child cannot stand or ama the baby cannot stand up ilmuhu ma istaagi karo let alone to run iska baddaa inuu cararo put it together in my head waxaa ku xigtaa put it together in my head oo macnaheedu tahay isku keenid ama iswaafajin maxaad doontaa tusaalaha ka soo qaad I couldn't put it together in my head macnaha waxay noqonaysaa macnaheedu waxaasi wii iga jahwareeriyay macnaha waxa weeyaan go-aan waan ka qaadan kari waayay baa soo kale loo odhan karaa inaan sheegayaan labadaa shay iswaafajiyo waa jahwareer baan ka qaaday macnaha markaad leedahay put it together in my head go-aan waan ka gaari kari waayay waan ka fikiri waan iswaafajin kari waayay waa la yidhaha sidoo kale on the one hand markaad dhinac ka eegto macnaheedu on the one hand markaad dhinac ka eegto waxaa ku xigtaa caught up in a teasy spin of fantasies waxaa weeye macnaheedu jahwareeray ay ka badabadatay macnaheega dambe sina waa qof markaad leedahay markaad shayga markaa waxaan arkay waxbaad soo tirisay markaasaa tiri I caught up in a teasy spin of fantasies macnaha waxaa weeye macnaheegu waaba mataqaana waan ku jahwareeray waxaa ku xigta to get my attention waa soo jeedin for example to get someone's attention macnaheedu waa maxay soo jeedin get someone's attention soo jeedin waxaan sidoo kale ku xigta take a picture with it when markii loo sheegay maxaynu nidhi sawir la gelid take a picture with it sawir la gelid and then balada metaphors kama afmaltida ku jirtay inay soo qaadano waxaa ka mid ah I spotlight was trained on me macnaheedu maxay noqonaysaa
iftiimasa ama iftiin iyo aniga liigu soo jeeyey. A spotlight was turning on me. Iftiin baan liigu soo jeeyey. Maxaa kaloo ku jirta? The rain were pulsing. The rain were pulsing like a neon sign. The rain were pulsing like a neon sign. oo macnaheedu tahay fargalku wuxuu ma taqaana wuxuu garaacmayay fargalku wuxuu garaacmayay like a neon sign sida calaamada xayisiiska. Neon sign waxa weey macnaheedu calaamada yar xayisiiska ma taqaana iftiima qoraal yar xayisiiso mesela waxa tiraa soo qaadayga hotel marka joogto in a cafeteria for example wax laga yaabaa or a restaurant or cosmetics meherada waxa laga yaabaa in ku hortaalo board yar magac meesha ku qoran tahay oo iftiin bixinaya xarfuhu iftiimayaan kaas la oranaya maxay xayisiis baa loogu talagalay in xayisiis maxaa la oranaya neon sign. And then waxa ku xigta red hot credit card. Red hot dad maqashay macnaheedu waa maxay damac noqday kululaaday. Red hot credit card maxay noqon kaarka diinta kululaaday mesela maxay ku kululaaday shaqada inagu jirtay in my back pocket jeebkayga dambe ku kululaaday markii waxa lagu qabtaa macnaha bisaarad iyo sheet bay ka hadlaysaa macnaha marka maxay noqon hadaa soo tiraado the red hot credit card on my back. The red hot credit card on my back pocket macnaheedu maxay noqonaysaa kaarka dhamacda ku noqday kululaaday jeebkayga dambe macnaheedu markaan waxba badal aan lacag ka saartay waxba aan waayay macnaheedu. And then that's all for lesson. That's all in our lesson for today. Ashirkeeni maanta intaas ay ku eg tahay. And then thanks for respectful listening. This is Abdel Liban, your English teacher.